السلام الله عليكم داوديال كسو دوادا فلاقينتا kulanka xiisaha leh ee dhex mari doona kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo kooxda kale ee Tottenham. Garoonka Tottenham ayaa lagu wada ciyaari doonaa waa tomorrow Brito oo waxay soo gali doontaa Khamiis ah habeenimo Jimcaha soo galayso 9:45 daqiiqo saacada Geeska Afrika. Kulankan waa kulan aad u xiiso badan. Wuxuu la mid yahay horyaalka hadda 3 qaybood oo ay u qaybsamay kooxaha u cararaya boosaska lagu soo baxo horyaalada qaaradda Yurub sida Champions League iyo Europa League sidoo kale tartanka horyaalka kooxaha Liverpool iyo u dhaxeeya Man City kaalinta koobaad iyo kooxahaas ka cararaya heerka labaad inay u noqdaan kaalmaha ugu hooseeya gala marka fiirisid kulankan Arsenal iyo Tottenham waa kulan labada kooxood ee u tartamaya inay kooxdu ku soo bixi lahayd kaalinta afraad sanadka socda Champions League kooxda Tottenham kooxda kubadda cagta ee Tottenham markaan fiirino kaalinta ay ku jirto horyaalka Premier League iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ku jirta kaalinta afraad iyadoo leh 66 dhibcood Tottenham waxay leedahay 62 dhibcood kaalinta shanaad bay ku jirtaa Tottenham ayaa rajeynaysa kulankan inay badiso Tottenham waa inay kulankan badisaa si ay kooxda Arsenal dhibic u soo jirsato maadaama horyaalka ay ka hari doonto 2 kulan hadda horyaalka waxaa ka harsan 3 kulan intaan u galin labada kooxood iyo qaabka uu ciyaari doonaan iyo information ku soo gali doonaan yaa kaga maqan dhaawac labada kooxoodba labada kooxood waxaa dhaawac kaga maqan Arsenal waxaa dhaawac kaga maqan Thomas Partey iyo Kieran Tierney Ben White isaga waa la filayaa inuu kulankan ciyaari doono sidoo kale Saka ayuu tababar maanta sheegay inuu isagana maanta la qiimeyn doono Ben White iyo Saka labadaba maanta waa la qiimeyn doonaa inay kulanka Brito ciyaari doonaan kooxda Tottenham ayaa 4 ciyaaryahan ay ka maqan yihiin 4 ciyaaryahan oo kala ah Sergio Reguilon iyo Olivier Skip Matt Doherty iyo ninka la yiraahdo Tanganga afartaas ciyaartoy ayaa sigi doona kooxda Tottenham ayaan ognahay 3 difaac inay ku soo gasho iyo 2 wing back sida Emerson Royal iyo Sessegnon oo ciyaari doona wing back ahaan difaac garab ah marka kubadda haystaan weerar bay aadaan markii kubadda laga haystana difaac bay soo aadaan Son wuxuu ciyaari doonaa number 10 ahaan ninka la yiraahdo Harry Kane wuxuu ciyaaraa number 10 sababtoo ah gadaashiisa laba ciyaaryaanka inta badan weerarka xaqiisa aada waa ciyaaryahan loo magacaabo Son oo u dhashay South Korea Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham kulankani uu ka duwan yahay kulamada kale haddaad leedahay Tottenham waa naadi adag maadaama ay ka badisay Man City home and away Liverpoolna ay barbaraca gashay home and away sanadkan labada naadi ugu horeeyay horyaalka kama aysan badin kooxda Tottenham sababta waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Tottenham labada kooxoodba waxay la ciyaaraysay qaab difaac ah marka waxay sidaysay kooxahani Tottenham kooxaha Man City iyo Liverpool waxa lagu yaqaanaa inay ku soo weerarayaan sababtoo ah waa laba kooxood horyaalka u tartamaya dhibcayn in lumiyaan ma doonayaan saas tahay way ku soo weerarayaan adna waxa raadinaysa inaad ka faa'iideysato fursadaas marka weerarku maqan yihiin inaad counter attack ku gaadid Man City kooxda Tottenham counter attack bay ku fiican tahay laakiin kulankan Arsenal waxaa laga rabaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham inay badiso maadaama 4 dhibcood horyaal hoggaanka looga hayo kaalinta afraad ay doonayso kaalinta afraad inay soo tigsato marka maxaa ku dhacaya daafaca kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo liita Arsenal way ka faa'iideysan kartaa fursadaas waayo qaab ciyaareedka ay ku ciyaartay kooxaha kale sida Tottenham sida Man City iyo Liverpool oo difaac ah kulama ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Arsenal waayo dan ugu jirto ayaga inay difaac ay galaan Arsenal waxay noqonaysaa inay kubadda iska baawasato ay fursad ay raadiso ayna iska ilaaliso counter attack taasna dan ugu jirto kooxda kubadda cagta ee Tottenham kooxda kubadda cagta Tottenham waa inay weerartaa kooxda kubadda cagta Arsenal waa inay la timaadaan qaab ciyaareed ka duwana qaabkii ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Man City haddii Arsenal la ciyaarto waxaa dhacaysa kooxda kubadda cagta ee Tottenham inay weerarto kooxda kubadda cagta Arsenal kadibna Arsenal ay fursad ay ka hesho qaybta dambe ee difaaca ee kooxda kubadda cagta Tottenham Arsenal ayaa la filayaa inay 5 difaac u soo gasho oo Ben White-na uu soo galo kadibna Arsenal ay ciyaarto sida Tottenham shaxdeeda kale 3 difaac ah iyo 2 wing back ah qaabkii ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Arsenal ayaa looga markii Stamford Bridge sheegtay inay qaab kale ay ku ciyaartay kooxda Chelsea oo 3 difaac ah maadaama Chelsea ay 3 difaac ciyaarto Arsenal ayaa la yaqaanaa kooxaha 3 difaac ciyaar inay 3 difaac ku ciyaarto si shaxda isku la dheelitirto labada kooxood
كان أرسنال هذه بيسو Champions League بيوصل بحيث مدة 60 سنة سوري مدة 5 سنة كذب سوري 60 سنة عندك واحد ليفربول بمودية 60 سنة أي قاعد هوري اللي قاعد ليفربول أرسنال 5 سنة بصراحة في Champions League ما يسنى لكن سنة كذا بيوصل بحضه فرصة وين أي سيتون تا من أركينا نتيجة صباح هذا طبعا كان